sidaan ognahayba waagii buufiska ama Soomaaliya wadanka markii uu burburay waxaa la sheegaa Soomaali badan in qaxootiyada Kenya hadii ay noqoto Dadaab hadii ay noqoto Kakumo ay tageen lagu soo dhaweeyay halkaas kaar qaxooti loo gooyay kadib macnaha ii sheegay buufis iyo waxyaabo noocaas ay xareysteen dhowr sano kadib 4 sano kadib 3 sano kadib la dhoofiyay oo Mareykanka iyo Yurub iyo qurbaha meelo badan oo kamid ah Australia Canada ay tageen ay u dhoofeen waxa Ilhaan Cumar ay kamid tahay waliba 4 sano markii ay qaxootiga joogtay waliba qaxootiyoon Dadaab ay ku nooleed kadib ayaa la soo qaaday sidaas ay Mareykanka ku timid ayada oo 8 jir ah oo ilmo yar waxba kala garanaynin ah halkaas ku weynaatay wax ku baratay haddana waa aragteen heerka ay marayso marka waxa macnaha cadaatay Soomaalida boqolkiiba 99 in ay sheegan jireen beesha loo yaqaano Madhibaan ee Soomaaliyeed maxay tahay sababta ku kaliftay in ay sheegtaan sababta ayaa lagu macneeyaa macnaha in ay yihiin minority ay yihiin bulshada Soomaaliyeed loogu nacab yahay ayaga oo inta badan macnaha lagu tilmaamo midgo ee sheegay la takooro la dhibaateeyo Soomaalida kale aysan jecleen loo guurinin sheegay ilaa iyo haddana arinta ayada ay jirto maadaama lagu eedayo sida Soomaalida ay tiraahdo weeye in hadda ka hor awoowayadood iyo dadkii hore iyaga ay ka soo farcameen in ay cuneen waxa loo yaqaano neef dhintay oo baqti ah ama ceyrin ama wax noocaas ah adiga taasna waxay ahayd wax hore oo macnaha ku tiri kuteen inay tahay ayaa waliba loo badinayaa hase ahaatee waxa yaab ah in la soo ogaaday oo la xaqiijiyay Soomaalida Mareykanka iyo dibadda intooda badan joogo boqolkiiba 90 in ay sheegteen beesha Madhibaan si macnaha ay buufis u helaan oo ay u dhoofaan ay xaggaas u tagaan ay uga soo shaqeystaan heerka ay hadda gaareen ay gaareen arintii ayaa marka laga daba imaaday oo la ogaaday registrationkii qabiilka ama daatada Mareykanka ku soo gashay way qornaanaysaa wiligeed oo wax isbedelahay ma jiraan marka daatadii ayaa qoran dad yoo fara badan ayaa la soo qarxiyay oo la ogaaday marka gabadhan aad aragtaan ayaa waxay soo bandhigtay shaqooyin gabadhan waxay ka shaqeysaa real estate waa shaqadeeda waxay ka shaqeysaa guryaha iyo suuqgeynta guryaha company American la shaqeysaa qaar ayada ay leedahay way ku jiraan assets saas ayay ku shaqeysataa sabti ahad laakiin ma shaqeyso sida ay sheegtay marka waxay soo bandhigtay fursado fara badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed u soo bandhigayso qaabab fara badan ay la wadaagi rabtay oo Mareykanka looga faa'iideysan karo adoo gurigaada joogo adiga oo macnaha ii sheegay qaab waxbarasho lagu imaan karo iyo qaabab ay soo bandhigi rabtaa ee soo wada laakiin waxay ka hormarisay in macnaha sidoo kale uu jiro qabiil Soomaaliyeed ee fududahay hadii qofka uu sheegto ama uu dhaho sida ay sidaas aan ahay waa la dhibaateeyaa maadaama la iska og yahay oo horey loo sii ogaay dhaatal mar hore la diiwaan galiyay ay tahay Madhibaanka gaaladan xataa ay og yihiin in ay yihiin dad la takooro isolation dadka Soomaaliyeed oo kale ooga jiro oo macnaha ay sheegeen noloshooda ay sidaas tahay si dadkii ay macnaha ooga soo dhaxbaxaan oo ay markay dibadaha imaadaan wax u qabsadaan maadaama waa ognahay shaqooyinka Soomaaliya ama Soomaalida qurba joog hajan noqdaan meel walba ha noqdaan laakiin Mareykanka iyo meelaha kale iyo Yurub waxaan ka ahayn oo gaalo loo shaqeynayo ama la shaqeysanayo sida ognahay dalkii iyo waliba Afrika Soomaaliya meel kasta oo Soomaali u badan tahay waa graduation qabyaalad ayaa shaqada la isku geeyaa marka qofka markii uu Madhibaan yahay waa wala yasahayaaba macnaha qabiilkaada meeshan ma degano uma badno deegaan kuma aho kan waxyaabo fara badan baa laga gudbinayaa kadibna qofkii macnaha asaga laftirkiisa ayaa xataa isliidahayo oo iskuma arkaayo qof human being ama bini aadan ah u qalbo levelada dadka kale ee gaareen ama in uu ka shaqeysan karaba aan isku arkeen maadaama waa hore la fogeeyay oo qalbidiisa iyo niyadiisa ay ka dhaadhacday in dadkan kale ama Soomaalida kale qabiiladooda kala duwan in uusan la mid ahayn marka gabadhan waxay soo bandhigaysaa waxyaabo badan oo fursadooyin ah marka commentiga ayaa waxay ugu soo wada qorahayaan Madhibaan baan ahay ma sheegan karnaa sidaas ayaan ku soo gali karnaa marka su'aalaha ay weydiinayso waxa kamid ah oo waliba maanta qof walba inuu isweydiiyo ay tahay Madhibaannimada ma run bay idinka tahay ma buufis baa ku jeceshihiin sida caadiga ah buufis jacayl ayaa u geenahayo Soomaalida in ay Madhibaan ama qabiilkaas sheegtaan wax kastana maanta way u sameynayaan Soomaali hadii la dhaho xitaa gaalooba qaarkood xataa ii sheegay chicken body markii la marinayo qaxootiyada way yaqaanaan waa la qaawiyaa nin iyo naag waxa tahay xubinta taranka la fiirinaya meel walba la fiirinaya ii sheegay nabar yar haduu meel kaaga yaalo waa lagu weydiinaya naaska hoostiisa intiisa loo rago meel walba laga fitishaaya taasna macnaha sida caadiga ah wadaadada sida ay dhaxaan
ma macnaha ay sheegay diintii kasoo horjeeda iyo waxyaabo noocaas ah marka ayada laftirkeeda ayaa la isku heesaa in xalaal ay tahay qofka noocaas Mareykan uu ku tagay in macnaha waxa uu soo shaqeystay iyo waxa meeshaas ka dhasho oo ka tarmo ama xoolaha noqdaan ama xeelad wax walba ha noqdaan inay xaraan yihiin iyo inay xalaal yihiin ayaa naftirkeeda la isku heestaa marka gabadhan bal ila daawo muuqaalkeeda horta ma dibad jacayl baa idinka dhan ma dhibaan u noqoteen mise wax qosol aad jira aan ka warqabinin haddaa dibad jacayl saas ay niga tahay oo ah horumar rabtiin oo daacad ah sheegta horta commenting number 1 ku soo qol haddii daacad ka tahay qof walba oo fiirsanaya oo daacad ka tahay inaad dibadaha tagtid number 1 ku soo qol haddaa ku qanacsan tahay Soomaaliyada joogtidna meesha Soomaaliya ka joogtid noo soo sheeg haddii runka tahay oo horumar rabtay inaad samaysatid oo wax walba fursadooyin badan baa jira insha Allah waana nila wadaagayay comment ku soo qor qosol bay ka tahay oo qof walba ma dhibaan wuxuu u noqdo qosolkaas daraadiis mase dibad jacayl daraadeed baa wax walba oo nila noqdo waa noqonaysin haddii saa tahayna dad horumar raba ila egtihiin insha Allah waxaan nagu caawin karana waa nagu caawinayay Soomaaliya xagee ka joogtiin qof walba Soomaaliya jooga xagee Soomaaliya ka joogtiin meesha Soomaaliya ka joogtiin isoo sheegay insha Allah inaan fursadooyinka jira aad ka faa'iideysan kartiin waa nila soo wadaagaya insha Allah horta fursadahan si ay uga faa'iideystaan in horumar ay rabaan dhalinyarta Soomaaliyeed taas waa run oo waa la wada ogyahay maanta dhalinyarta Soomaaliyeed nolol dhaanto ayaan u baahanahay isbedel ayay rabaan dhalinyartii in wadamadan ay imaadaan ayay rabaan ay wax ka qabsadaan ay wax bartaan ayay rabaan marka si walbo oo macnaha ku ii sheegay wada kasto ay u mari karaan way u sameeyaan xataa qaarkood halis bay u galaan oo darbigii aad ogeedeen iyo dhulkii aad ogeedeen ee Mexico iyo Latin America ee halista ahaa ay soo dhaxmaraan oo halaqyo iyo balaayo iyo ii sheegay tuugo iyo wax walba leh ay soo maraan taa waa positive thought laakiin waxa negative ah in maanta qabiil Soomaaliyeed munaafiqnimana ah lagu jeesjeeso macnaha marna la sheegto markii car victim la xoqanayo ayaga la sheegto marna laga faano sanka laga qabsado taas ayadana waa dulmi marka laakiin waxa iska cad oo banaanka taalo maanta dhalinyarta Soomaaliyeed inay horumar u baahan yihiin in ay u baahan yihiin inay wax qabsadaan sida ognahayna Mareykanka waa land of opportunity waa dhulkii macnaha fursadaha haddii maanta qof dhalinyaro ah uu tago energy uu leeyahay sax wax uu baran karaa nisna wax uu shaqaysan karaa marka taas daraadeed iyo dadaal iyo mintidnimo ayaa laga yaabaa in macnaha ay ugu soo qorahayaan dhibaan iyo kan ay ugu soo qorahayaan sidoo kale waxa sii badanayso xiisaha dhalinyarta Soomaaliyeed ay u qabaan in wadamadan qurbaha ah ay tagaan oo ay ka shaqeystaan marba marka ka dambeysana xamaasadooda ay sii kordhayso sidoo kale gabadhan waa gabar hormuud u ah macnaha dhalinyartana waxyaabo fiican u soo bandhigto ayada laftirkeeda successful person ah oo la shaqeyso qolooyin dhismo ah ayada laftirkeedana ay share ku leedahay mar walbana ay soo gudbiso oo bartaan ay Soomaalida kula wadaagto bartada TikTok-ta ah marka bal adiga laftirkaada ma ka mid tahay dadka macnaha daneynayo aribahan ayaga ah haddii ay haa tahay qaybta commenting noogula wadaag bal wixii fikirkaada ah haddii ay tahay xumaan iyo jees iyo waxyaabo nooca qof dhalinyaro tahay mustaqbal baad leedahay waxa kuugula talin lahaa ka dhalinyaro ahaan in de waxyaabahan camal laga dhaco oo qabyaaladii afaarahan la gelin siyaabo kalena macnaha looga faa'iideysto fursadaha iyo waxyaabaha ay gabadha soo bandhigayso sida ognahayna dadaal iyo macnaha ay sheegay in ayada wax ka soo saartaan oo wax ay idin sheegto ay idin soo gudbiso umad macnaha u qodqodeysaan oo macnaha aad ii sheeg ugu shactireysanaysa arinta ayada kulli sida aan filahayo weeye caadifadna baryahan dhalinyarta Soomaaliyeed way iska dhaafeen oo waa laga daalayba haddii uu muuqaalku soo gaaro wixii fikirkaada qaybta commenting noogu soo qor muuqaalka dug soo gaaro like noo saar YouTube-ka ku cusubtahay subscribe waana mahadsantiin